wax ka badan 10 maalmood kadib markii doorashada wadanka mareykanka ay ka dhacday guud ahaan dalkaas ayaa waxa uu madaxweyne Donald Trump hadda u muuqanaya in uu garawsanayo in doorashadii 3 bisha November ka dhacday wadanka mareykanka uu ku guuleystay madaxweyne Joe Biden. Mr. Trump oo hadal dif inaadir ah oo ku saabsan dhinaca doorashadii wadanka mareykanka isagoo ka hadlaya waxa uu yiri waxaan rajaynayaa maamulka bisha January imaan doona in tallaabo xoog leh uu ka qaado isla markaana loo helo wax lagu daweeyo xanuunka COVID-19 waana talada aan soo jeedinayo ayuu yiri madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayay aqalka cad ee wadanka mareykanka. Warbaahinta gudaha mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ayaa si weyn u hadalhaya in hadda madaxweyne Donald J. Trump uu go'aansaday in doorashadii looga guuleystay inkastoo ilaa iyo hadda si rasmi ah uu Mr. Trump ugu dhawaaqin in si weyn looga guuleystay isla markaana Joe Biden uu yahay madaxweynaha isaga bedela doona. ilaa iyo 7 maalin ee la soo dhaafay ayaa xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha wadanka mareykanka waxa ay si weyn u raadinayeen cadeymo ku saabsan in doorashadii wadanka mareykanka markaasi ay ka dhacday wax isdabamarin inkastoo gobolka Pennsylvania wararka qaar hadda ay tilmaamayaan in la waayay wax codad la isdabamariyay taas oo xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Donald Trump geysay in quus ay ka gaaraan doorashadii wadanka mareykanka. Mr. Trump ayaa hadda waxa uu muuqanayaa in uu ku qasbanaado in si weyn uga hambalyeeyo madaxweynaha la doortay ee wadanka mareykanka Joe Biden. Hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa horey uga hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee wadanka mareykanka Joe Biden iyo Kamala Harris oo iyana noqonaysa gabadhii ugu horeysay oo midow ah oo mareykanka madaxweyne ku xigeen ka noqoto. Trump oo tan markii doorashada ka dhacday wadanka mareykanka si weyn u diidanaa in xisbiga dimuqraadiga ay si weyn ugu guuleysteen ayaa hadda aad moodaa in uu garawsanayo in dhirbaxo kuleel kaga timid dhinaca codbixintii dhacday 3 bisha November. haddii Mr. Trump uu si rasmi ah u aqoonsado Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Amerikaana oo sidan oo kaleeto inta doorashadiisu ay muran gasho haddana dib ka aqoonsada isaga oo musuqmaasuqii mareykanka ku tilmaamayna weli meel u laayahay. maxkamadaha sare ee wadanka mareykanka ayaa quus ka muujinaya in aanay natiijo laga gaaraynin dooda inta badan cadeymaheedu ay lunsan yihiin ee uu gadaal ka riixayo madaxweyne Donald J. Trump iyo xisbigiisa. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.